muhiimadda qorshaha qaranka. marka qorshahan waxaan rabnaa qorsho waddankoo dhan laga keeno xogta dadka talo la weydiiyey Soomaaliya daliyadeed meel kasta jooga la soo wareystay la weydiiyey waxay baahidooda tahay waxay u baahan yihiin ku qortaan qorshaha wuxuu noqonayaa qorshe 5 sano soconaya marka wuxuu bilaabanaya 2020 ilaa 2024 bedeli doona qorshaha hadda jiro 2017 2019 oo hadda qiimeyntiisa dhexda marayso hal sano noo haray marka qorshahan insha Allah rajaynaynaa inuu noqdo qorshe Soomaali oo dhan laga soo riyay xogtooda iyo waxay rabaan waddankooda 5 sano soo socda inuu qabto iyo si dawladdu shaqeynaa marka qorshe 5 sano way oo kaamil ah aan rabnaa inaan hawshiisa bilowno hadda waxaan soo diyaarinay sidoo ay kaanayo laakiin xogtiisa waxay ururinta gobol walba la tagay degmo kasta oo la tagay waddanka waxaan rabnaa inaan dadka Soomaaliyeed ka soo qorno ahmiyadahooda sidii rabaan waddanku inuu ekaado iyo qorshe rabaan dawladdu ku shaqeyso dawladda soo socda Soomaaliyeed iyo maamulka Soomaaliyeed aan rabnaa in waddanka laga hirgeliyo noqdo kanayso dawladdu ku shaqeynayso hay'aduhu ku shaqeynayaan dadka adduunka ka yimaada waddanka yimaada ku shaqeynayaan qorshihii dhammaan qaranku noqonaya hadii